السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سلام أصحابتي مeel kasta adduunka ka joogtaan kusoo dhawaada YouTube channelkeena. magacaygu waa Maxamed Jaamac. maanta waxaan idin la wadaagayaa muuqaalaha qaabkii aan u sameyn lahayn slow motion. dadka odarta TikTok dadka isticmaala badankooda waxay isticmaalaan wax lagu magacaabo slow motion, muuqaaladooda inay qayb socodkooda gaabiyaan, saas oo kale laga yaabo in badan YouTubers Soomaaliyeed inay ka hadlayaan. maanta waxaan isku dayayaa insha Allah inaan muuqaal yar ka diyaariyo. muuqaalkeenu inuu bilaami doonaa insha Allah. waxaan ka codsan lahaa channelka cusub inay subscribe saarto, asxaabta channelka xidhan waxaan ka codsan lahaa mar leeyahay inay si share gareeyaan, la wadaagaan asxaabtooda. si hadda 790 memorana YouTube-keeni, marka si aan kunka u gaarno insha Allah. wax ka badan baan hubaa inaad gaarsiin doontaan, balse waxaan ka codsan lahaa inaad si share gareysaan insha Allah. ugu horreyntii markaan soo furano application-ka KineMaster waxaan ugu soo baxayaa qaabkan. marka waxaan taaban doonaa calaamadda plus-ka meesha ku qoran tahay si aan ugu soo doonno qaabkii aan rabnay ama aspects-kii aan rabnay inaan muuqaalka u gelino. marka waxaan taabanaa calaamadda plus-ka, kadib waxaan noo soo baxayaa saddexdan qaybood. qaybtan dhankan oo xigta waa qaybta Instagram-ka, qaybtan oo qaybta status-ka iyo TikTok-ka loo isticmaalo, qaybtan waa qaybta fiidiyoyada caadiga sida YouTube-ka lagu sameeyo. marka qaybtaad rabtid baad ka dooranaysaa. haddaad rabtid qaybta Instagram-ka lagu fiidiyodiisa lagu hagaajiyo, ama qaybta TikTok-ka sidoo kale, ama qaybta fiidiyada caadiga sida muuqaalada YouTube-ka oo kale. marka muuqaalkan anigu maanta isticmaalayo waa qaabka YouTube-ka oo kale. marka waxaan dooranayaa taa ugu horeysan dooranaya. markuu qaabka nagu soo baxo waxaan tegaynaa meesha ay ku qoran tahay media tegaynaa si aan ugu soo darno muuqaalkii aan rabnay inaan slow motion ku sameyno. marka halkaas media ku qoran tahay ayaan taabananaa, kadibna waxaan soo dooranaa muuqaalkii aan rabnay inaan ku sameyno slow motion. haddana tan oo kale muuqaalkan oo kale aan rabo inaan ku sameeyo slow motion-ka, marka muuqaalkaas ayaan soo dooranayaa. marka waxaan taabanayaa calaamadda saxda waan taabanayaa. markaan taabto muuqaalkan daarana ugu horreyntii qaabka uu noqdo inoogu socdo baan eegi doonaa insha Allah. marka waa aragtaa muuqaalka bila slow motion-ka. marka waxaan korkiisa ayaan soo taabananaa si aan slow motion ugu sameyno. marka waxaan tagnaa qaybtan ay noo soo baxaysaa. laga yaabo inay qayb kalena ku soo baxdo, qaybta saan oo kale ku soo baxdo, balse labadaba waan tusi doonaa insha Allah. marka waxaan tagnaa meesha calaamaddaas ay ku qoran tahay saacadda oo kale intagnaa. sidoo kale haddii ay sidan kale ku tahay waxaad tegaysaa isla meesha ay ku qoran tahay saacadda ku sawiran tahay speed ay ku qoran tahay teganaa. marka qaybtan usbax xaggan hadda awoodid inta qaybtan waa slow motion-kii, wixii xaggan dambeeyana waa fast, muuqaalka xoog buu soconayaa. marka waxaa la isticmaalaa qaybtan halka wixii xaggan ka xiga oo dhan waa slow motion. marka waxaan sameynaynaa slow motion-ka laba mid ayaan ku sameynaynaa. waxaan ka dhiganaa qaybtan 0.5-ka ama 0.25-ka. haddii aynu ka dhigno 0.25-ka sidan ayuu noqonayaa. wadalta qaabkaas inoo noqday. haddana waxaan eegi doonaa 0.5-ka intuu inoo noqday eegi doonaa. 0.5-kana sidoo inoo noqday ayaan eegi doonaa. marka waxaad arkaysaa ama sidaad muuqaalka ka arkaysidba inay fiican tahay qaybta hore ee ah 0.5-ka inay ka fiican tahay 0.25-ka. sababtoo muuqaalkan markan aad ayuu gaabinayaa. marka 0.5-ka ayaa noo fiican. marka 0.5-ka ayaan ku dejisanaynaa. marka haddii aad rabtid muuqaalka inaad dejisatid laba hab waa sameyn kartaa. inaad ku dhufatid qaybta ku dhufatid oo aad kasii dooratid export, ama sidoo kale inaad sameysid intaad muuqaalka ka noqotid halkan ku soo geliya. marka intaad qaybtan saa ugu dhufatid aad halkaa tirahdid share tirahdid, kadibna halkaa export ka tirahdid. marka muuqaalkeenu intaas uu ku saabsanaa. haddii insha Allah aad ka heshay waxaan ka codsanayaa asxaabtaada la soo wadaagto, sidoo kale muuqaalka sii share gareyso
si dadkuna ay uga faa'iidaystaan annana aan helno ujeedkii. Marka muuqaalkan intaas ku saabsan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.